السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت دمت الله ونحرست انت حنوتين إلى عافية ويحمل المراد كذا وخير إله سهله لو قاروا إن أنا هذلو ورلا ياب له أوكي معنا أيوه FBI المراكن أشياء نين كتر سنة FBI أيا وحا لوجه لي إنه مقرن استحستو إن نقالة بدن أكل الدول سيد الذهب ساعدو سومان ونا مقرن استعلا شقين جري روشكا ونا جامعات كبحي جامعة روشكا كاسو مقرن استعاد إلا بارتام الود بجرو لكن هلي FBI إلا هاد ولي واحد لم هلين لكن ولي وركو سعدا كاس وركاس قضب كاس واي قضب كلوان وحوجه هذلنا إن كوبا لبك كجرو يا قرب استاجه شينها أو لقرب استاجه وده هي سبوحدة أيا وزارة أرماد بدأ شينها وان يي أيا يري سبوحدة أيا أتاجرنا إن مركوه الرئيسين واحد سين لحدا كن أو تن أو بريسة أي أحد هاد جارسيان مركز على لبلا قد نوه هذا أي سوق فحسن وكذا nin hore uga tirsanaan jiray hay'adda sirdoonka Mareykanka ee Central Intelligence Agency CIA ayaa lagu magacaabay David Arushka ayaa lagu eedeeyay inuu isticmaalay shahaadooyin been abuur ah iyo sheekooyin aan run ahayn ku saabsaneed shaqadiisii military sidii lagu sheegay dacwadaha iyo baaritaanada Mareykanka Ruushka wuxuu sheegay inuu haysto shahaadooyin jaamacadeed uu ka qaatay wuxuuna kale waxa duuliye sare ka tirsan ciidamada badda Mareykanka balse FBI ay sheegtay in waxba cadeyn ah loo haynin arintaasi mas'uuliyiinta Mareykanka ayaa sheegay inay gurigiisii ka heleen 330 xabo oo dahab ah oo midkiiba culeyskiisa yahay 1 kiilo kuwaas oo qiimahooda lagu qiisay in ka badan 40 milyan oo dollarka waxa sidoo kale lagu qaaday saacado qaali ah oo nooca Rolex Ruushka ayaa sidoo kale lagu eedeeyay in uu sharci darro ah ku qaatay ku dhawaad 77,000 oo dollar isagoo sheegayna fasax military kadib markii uu ka baxay ciidamada badda sanadkii 2025 kiiskani ayaa walaac weyn ka abuuray gudaha Mareykanka maadaama uu muujiyay sida qof uu muddo dheer ah ugu dhuuman jiray nidaamka amniga ee Central Intelligence isla markaana uu heli karay awoodda iyo hantidooda qodobka labaad warbaahinta rasmiga ee Shiinaha ayaa sheegtay in wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi uu ballan qaaday taageerad buuxda si uu siiyo Kuba xilli Kuba ay wajahaysa cadaadis kordhaysa oo kaga imaanaya United States Wang Yi ayaa kulan uu magaalada New York kula kulmay dhigiisa wasiirka arrimaha dibadda Kuba Bano ayaa sheegay in Shiinaha si buuxda uu difaacayo Kuba iyo taageerada horumarka dhaqaale iyo noloshiisa Kuba wuxuu kaloo sheegay in ay muhiim tahay in la ixtiraamo madax banaanida iyo xorriyadda nidaam wadamada laguna hortago xog sheegaysa iyo cadaadis siyaasadeed hadalkani ayaa si toos ah ugu wajahan Mareykanka Shiina iyo Kuba waxay leeyihiin xiriir dhow ah waxa uu u baahan yahay wuxuuna ballan qaaday Shiinaha 60,000 oo tan ah si loogu caawiyo yaridda cuntada iyo ka jirta Kuba waxayna gaartay axadii hadda la soo dhaafay dhanka kale wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa ugu ballan qaaday inay si xoojinayso iyo cadaadiska iyo ay ku hayso Kuba waxa ay wajahaysaa dhibaato dhaqaale iyo tamar la xiriirta cunaqabateyntii Mareykanka dadka Kuba ayaa la dhahaa la daala dhacayo cunno yari
daawiyari iyo korontay joogteen markii ay cunaqabateeyeen 1959kii wasiirka arrimaha dibadda Cuba ayaa ka codsaday golaha ammaanka ee qaramada midoobay inay si gargaar u degaan intaas arag inay la kulmaan. Assalaamu calaykum.